Faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaya askar ka tirsan ciidanka asluubta Soomaaliyeed oo maanta mushaar la'aan ay ka gadoodsan yihiin awgeed u xirtay qaar ka mid ah wadooyinka soo gala xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho ayaa la soo warramaya in weerar lagu qaaday isla markaana hadda uu socdo iska horimaad u dhexeeya ciidanka asluubta ee gadoodsanaa iyo sidoo kale ciidamada ammaanka ee magaalada Muqdisho. Soo dhawow waxaan dul istaagi doonaa si kooban wararkii ugu dambeeyay iska horimaadka ciidanka asluubta ee mushaar la'aanta ka gadoodsanaa iyo sidoo kale ciidanka ammaanka magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. Ciidamo ka tirsan kuwa asluubta iyo sidoo kale ciidamada ammaanka ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa lagu soo warramayaa in iska horimaad uu ku dhex marayo agagaarka xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho. Ciidanka asluubta oo ka gadoodsan mushaar la'aan muddo dhowr bilood ah ayaa xirtay jidad muhiim ah oo soo gala xabsiga dhexe, maxkamadda ilaa iyo sidoo kale wadada dekedda aada, waxaana lagu soo warramayaa in ciidanka asluubta ay yihiin kuwo markaasi mushaar la'aan ka cabanaya. Ciidanka asluubta markii ay xirtay wadadaasi waxaa la soo warinayaa in weerar ay ku qaadeen laamaha ammaanka ee gobolka Banaadir, waxaana iska horimaad uu hadda ka soconaya suuqa kalluunka ee magaalada Muqdisho. Ilaa hadda ma jiro faahfaahin rasmi ah oo ku saabsan khasaaraha uu sababay iska horimaadkaasi, laakiin waxaa la soo warinayaa in weli uu socdo iska horimaad si rasaaseyn iyo sidoo kale dagaal u dhexeeya ciidanka asluubta iyo ciidamada ammaanka ee gobolka Banaadir. Guud ahaan wixii ka soo kordha iska horimaadkaasi wararkeena dambe ayaad ku daawan doontaa. Kusoo biir boggan oo follow soo dheh, muuqaalka like saar, siina share gare oo la wadaag asxaabtaada kale. anoo ka tirsan sargaal ciidanka asluubta ah waxaan ka cabanaynaa ciidankii dibowga oo 1 sano iyo bar shaqaynayay. maanta waxay nagu qasadeen madaxda oo ciidanka asluubta inaan wadada xiranno. 1 sano iyo baraan shaqaynaynay, haquuq la'aan iyo garaamkii oo ciidan intaas waa haynay. 1 sano iyo bar waxaan ka shaqaynaynay laamigaas. maalintiina laamigaan taaganahay, hawadiina waa seexanaa. waxaan ka codsanaynaa taliyaha ciidanka iyo wasaaradda cadaaladda iyo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha inay 12 saac ay ku soo jawaabaan.